إن الحمد لله وعن ربا إن عاو كهالله إن قف والبو يعني ومد الصوماليين إلهي وحوك لسيي رغم بوسيي دادكو يعني روح أيسن دورنين أما يعني محوها ومد آنان كم ذي سنين ما متلي كرو إنه يرادو أنيقا أغاسا وحان ربا إنان أغيسيو dhammaan soomaali meel kastoo ay joogto siidey xaaji maxamed nuur ugaas dabara ma ahan maantayto diinsool buu tagay sida aan ka warhayno soomaaliya maamulkan dembi jadiid ee xasan sheekh maxamuud u hogaamiyeen wuxuu ugu tagay ugaasnima loo diray siidey xaaji maxamed nuur waa odayaasha soomaaliyeed yani muxuu ahaa oday dabaro waay beesha dabara yani wuxuu ka mid yahay odayaasha beesha dabare oo caadiga ah ma ahan wax ugaas la yiraahdo taytalkaasna ma qaadan karo ummaddu ma wanaagsano in laablakac iyo yani muxuu ahaa iyo yani markii go-doon la galay siide yani muxuu ahaa soo dhaweynta maanta aad u samayseen oo ka taytalkaas aad samayseen waa dembi kabaa'ir ah waxaan rabaa inaan u sheego reer diinsoor ilaahay ha u toobad keenaan qofka bani aadamka laguma sheegi karo taytal aan asaga lahayn siday sidaad ogtihiin xilka yani muxuu ahaa 12 jifo ee qoomiyadda dabare ayaa maalin cad tuulada yaaq baraawe shir ka dhacay ayaa xilka loogu qaaday xilkii wuxuu dhigay tuulada yaaq baraawe wixii ka sokeeyo laba nin oo dabaro oo meel isugu timid oo siiday dooratay oo aan ognahay haba yaraatee ma jirto ma garat ma waxyi baa marka waxyi oo cirka ka yimid miyaa asaga lagu soo shubay oo dabaraad ugaas u tahay lagu yidhi waa maya dabaro waqtigan xaadirka ugaas mala aadan deerow ayaa ugaas u ahaa aadan deerowna wuxuu noqday al-shabaab waa nin argagixiso ah oo duurka ku jira siidayna waaba kaga horeeya aadan deerow argagixisanimada waa nin terrorist ah waa nin jawaasiis ah waa nin shabaab u adeego waa nin al-shabaab mucaskarkoodii tababarayaashoodii waaweynaa uu ku jiray waa nin laba wajiilo ah waa nin dhowr wajiyo leh waa nin diiman badan leh ma garat bulshada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ogeysiiyo united nation qaramada midoobay kuwa haddeertaan rabo in soomaaliya yani muxuu ahaa oday dhaqameedyadeed ay soo xareyso beesha dabare siidey ma matalo ugaas dabarana ma ahan dabara haddeertaan buu ku tali jiraa inuu ugaas samaysto maalmaha soo socdan waan usoo gudbinaynaa international community-ga ma garat bankin mun waxaan gaarsiinayaa oon u sheegayaa beesha dabare ee ku nool koonfurta magaalada baydhabo 120 kilomitir u jirto kana kooban bulsho yani muxuu ahaa ilaa iyo kana kooban ilaa bulsho ilaa iyo muxuu ahaa ilaa iyo 700 oo yani nus milyuun iyo inka badan oo meeshaas ayada ku nool degmadaas ayada ah oo dadkeeda waqtigan xaadirka marxalad adag ay ku jiraan ururka argagixisada yani muxuu ahaa cunaqabateynta saartay waxaan rabnaa inaan u sheegno annaka hadda iyo wixii ka dambeeyo ayaan ugaas samaysanaynaa waqtigii odayaashan dhaqanka soomaaliyeed la xareynayana waan keenaynaa ma garat beesha dabara ma matelo siiday ciddii yani muxuu ahaa odaynimo u xareysato ayada ayay gaar u tahay laakiin waxaan u sheegayaa odayaasha dhaqankaan ugu digayaa yuusan idin qarxinin gacmaha ayuu bambo ku wataa waa argagixiso caalami ah waana sheegaynaa hadduu ilaahay idmo taariikhdiisoo dhan baan rabaa inaan soo bandhigo maxaa yeelay qofka bani aadamka waxaa la rabaa inuu hal weji yeesho ummadda soomaaliyed waxaan ugu digayaa maamulkan dembi jadiid xasan sheekh maxamuud iyo jawaari iyo cumar cabdirashiid iyo dhammaan kuwa hadda xildhibaanimada meesha ku joogo
iyo kuwa maamul goboleedyada beesha dabare wax ugaas la yiraahdo oo ay leedahay oo ilaahay uu inta abuuray malahan waana soo gudbinayna maalmaha soo socdo intaasaan la socon doontaan wixii faahfaahin aan gadaal baan kasoo gudbin doonaa iyo akhbaaraad ku saabsan qaraxii u dambeeyay ee muqdisho ka dhacay cidii ka dambeysay iyo meesha laga keenay waan caddeyn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo kelibida soo socdo waxaad kala socon doontaan website-ka www.kacdonews.com حسبك الدنجو دريال شعب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته